xildhibaan xasan nuur cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Saylac isla markaasina ka soo jeeda deegaanka Xariirad ayaa waxa uu maanta nooga waramay shaqaaqo ka dhacday magaalada Xariirad. shaqaaqadani ka dhacday maanta magaaladaasi ayaa waxay daba socotaa dhibaatooyin waqti dheer soo jiitamayay iyo aanooyin ay kala tirsanayeen beelaha wada degan deegaanka Xariirad. maanta ayaa ahayd waqti ay ku ballansanaayeen magaaladani inay iskugu yimaadaan odayaasha labada beelood ee isku haya deegaankaas iyo wafti ay xukuumaddu soo dirtay oo ah qaar ka mid ah golaha guurtida ee maamulka Soomaaliland isla markaasina laga rajaynayay in xal laga gaadho dhibaatooyinka ay kala tirsanayaan beelahaasi. xildhibaan xasan nuur cali oo hadda ku sugan magaalada Xariirad ayaa wuxuu nooga waramay dagaalka ka dhacay maanta iyo wixii sababay isaga oo eedayn ballaaran u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Salal oo ku sugan magaalada Xariirad kuna eedeeyay in uu bilaabay isku horkeen shacab isagoo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yiri waxa badan warantaa saaka magaalada Xariirad iyo amnigeeda xaaladda looga waran guud ahaan magaalada ku sugan tahay yahay oo maanta ballan ku ahaa maxaa dhibo jiro maxaa soo kordhay xuqaasha dhinacyada labada dhinac iyo cidii ay khusayso xuqaashooda mudooyinkan ku soo qulqulaya Xariirad haye iyadoo sidaa ay tahay waxay yimiday shalay soo galay barasaabka gobolka Salal haye kaasi oo rabshadii hore dadkayga ku haabilo xalalka ku qaybtooda u weynay ee bixinay siyaadada reerka warka salay taaka wuxuu soo galay جاكي كم صوت الأمير؟ يلا سوري دي برتلا يلا خليها. ما أنت نباتي. أيوة ما فرتناتي ما فرتنوباتي ما فرتنوباتي. أيه. والله ما فرتناتي اللي صعبة هاي. والله وين راح أشوف ده. أركز أول بمجرى إنه يسوى أو خدم بيو يا غير يسوق له. أنا حاسس يوت وقفت أيه. استعمالي ديالك ما دعموها مسحوبة الاستعمالي وضيّبا وحنا استعمالي وحقوري وخوه دعي مجرم بالله ودد يو فرحان بيحايان يعني ما يريد هو يسنى اسمهيدين من الرجل دي كسوخ فيك ولادي سقلاء يانحو لكاها وقتي قاسي دقال كنا عي هالكوكو سقناء بعد سلام عي برسابك قولكو برسابك قولكو حكو سقناء قيس ترك الشمر كوشي لما نسوي الجديد كتب مصاحرة يقول لي أنا أقول هذا ما يقول هذا هو دامي كحاب بس هاي أنا وحى وضع وغيابا يلك وغيابا بوسي لا يمدد الحياة وحكوا لي ماشي هو بربري لنا ولا بربري يبقى هاي وكان بقى هذا القبيل يكبر وراك كي هو مرة صاحب الضوء الكسر
talagalay inay hawshani xalkeeda galaan ama ay dhameeyaan ee maanta balanku ahaa weli ma soo gaadhin xildhibaan shaqaaqadan ka dhacday odayaasha hortood maxay sababi kartaa baad isleedahay maxaa ma gelin kartaa hawshii ay golaha guurtidu u socdeen wax ma yeeli kartaa dhanka kale ee weerarka loo geystay ama la soo weeraray maxaa iyaga laftoodu ay imika waa sidee oo xaalkoogu waa sidee may degayiin mise iyaga laftoodu dagaalkeeda u leeyahay kollay mas-uuliyad ahaan ka xildhibaan ahaan iyo duqaydii buurtida timidayba dadkii dhinacayaga inteeda badan waan dejinay war wixii doonaabaha macamal hadduuna dil dhimasho imika jirin in laga laaftaan idhi oo inoo daboola waa ka intii taalka yagaa dhinacayaga waa fadhiisanayna laakiin saadaashii mar hadduu isagiiba hogaamiye xol yahay in ay nabadi halkaas taalla uma malaynayo dagaalka meesha ka dhacay ma ciidanka qarankaas soo kala dhex galay oo dhameeyey oo dagaalka joojiyey oo hakad geliyey mise waa la kala dhargoo sidaa ugu dhamaaday ciidamadii adiga lagu soo kala dhexdaadiyaa kuwaabaana kala dhex jooga marka laakiin labada daamood waa la shar fadhiyaa markaa sheekadu u dhigan inaan awal jiri jirinna waxay ku yidhaahdeen marasaabka naftiisa war kastoo soo timaada hogaamiye ruuxeed baatee bulshada ka daa sidan ciidamada qaranka sida oo kale waxaa noo suurto gashay inaannu la xidhiidhno guddoomiyaha gobolka Salal Cabdilaahi Faarax Maydhane waxaanan weydiinay eedaynta loo soo jeediyey iyo waxa uu ka qabo waa kan isaga oo ka hadlaya arrimahaasi moogi waxa weeyaan aqalka waa aqalkii diyaarkiisa waa aqalkii martida soo socotay guurtida ayaa loogu talagalay sharci horteed maxamarka waa soo bixi waxaan ka heli qolada deegaanka ee maayarka iyo maayar ku-xigeenka inay u sii nadiifiyaan halkaa odayaasha maaragtay iyagu way galeersha waa la soo maydhay maaragtay gidaafad maaragtay ku tijaagtana ciya inama yar bulshada tooliyay gidaafadaa soo guraysaane ya ii kaalaya markaa dabeeta shalaybayna u imanin saakay tageen halkii labadii yaraa gurigii bay tageen gurigii iyagu maaragtay dee inay gidaafadii kasoo guraan bay ugu tegeen marka ku yaroo joogay oo dad sibiila baa joogay oo raxaa joogay ma leedahay ya kiibaa carro qurigu soo qaateen kayar markaa muxuu ahaa ma ciidan buu ahaa mise shicib buu ahaa kaayar ciidan ma ahayn ninka meesha joogay ee qoriga soo qaatay ciidan ma ahayna shicib buu ahaa ciidan ma ahayn anigu maaragtay ya oo dowladda hoose ahaa dowladda hoose xariirad buu ka shaqeeyaa iyo maaragtay ahaan jira la yidhaha anigu laakiin ciidannimo kuma ogeynu kumana aqaana maad markaa cidda isku dhacday ee isku dhaca uu ka bilaabmay waayo waa kaayar iyo kii u tego mida markuu quriga usoo qaato kii kala bilaabo la soo baxa waaba labadaa shaksi arrinku ayuu bilaabo la soo baxa guddoomiye waxaa kaloo noo sheegtaa xildhibaanada golaha deegaanka ee Saylac qaar ka mid ah oo nala soo xiriiray waxay noo eedayn ballaaran ayay ku soo jeediyeen waxay yidhaahdeen kol kasta oo magaalada xariirad ka dhaca ama shaqaaqa ka dhacda waxa lu kule waa guddoomiyaha gobolka Salal maxaad eedayntaa ka jawaabaysaa adigu waxa weeyaan horta taasi eedayntaasi waxba kama jiraan ninka xildhibaanka xasan loo rayraana had iyo goor ale saaka waan saragnay saaka wuxuu yidhi haddii halkaa lagu dhimani waayo oo waxaan ka oo ciise uu ku dhimin weydaan anigaan waxbaahay war waxaan ku idhaa xildhibaan baa tahay waa lagu doortay labadaba xildhibaan baa u tahay afar xun iska daa saakoo dhan baa la hadlayay sharcina maaragtay anigu sharcigana waan marinayaa tallaabadaa waa gudbinayaa inuu ninkaas xildhibaanka awli nin xildhibaan ahay in uu yahay maaragtay qolo u shaqaynaya qolonimaduna ma aha maxaan ku idhahay waxa weeyaan waa ninka maaragtay xildhibaanka waa ka mamnuuc xalli goolan ninka maaragtay arrintaas sameeyey waa lagu dhimanayaa waa isaga hore maaragtay ninka quriga qaatayna isagu mu ahaa markaa maaragtay 10 goor baan la hadlay waxaan ku idhi waryaa digiyo badan naasiyo afka maanta qoraalkaa ka sameynaya haddii la yidhaah sida uu sheegay xildhibaanku wuxuu yidhi horay wax shaqaaqo u dhici jirtay ma jirin labada beeloodna way wada deganaayeen aayar baa loo joogay mar kasta oo guddoomiyuhu noo yimaado unbuu dagaalku bilaabmaa buu leeyahay bal maxaad kaa kordhi waxa weeyaan waa wax isaga ku jiray waxaan iigu jira maaha ragga yarana raggay maaragtay yidhaaheen maaragtay iyagaana diray waa guddoomiyaha degmada
iyo ku-xigeenkiisa waa gudoomiyaha degmada aniga maaha anigu ka aan u sifaynayna ma kamid jireen kuwa looga baahan yahay inay wax dejiyaan waa kuwa xildhibaanada iyo kuwa maaragtay golaha deegaanka aniga waxay quseeyay ma aniga kormeeruhu oo ragga gobol ku soo dhaweeyay yaanu miday wax kale isku dhawan midaan mid kama sameyn karo kuwa mari iyo kuwa gadadaan inaan marta ku lahayn ogahay haye ugu dambeyntii gudoomiye waxa nooga warantaa arrinka shaqaaqada markaad maqashay maxaa talaabood qaaday adigu talaabada waxaan qaaday maadaama maaragtay la yidhi iyaga oo maaragtay odayaashaasi fadhiya maaragtay ay fadaxadisooda ku dhacday amar baan ka bixiyay iyagaa fadhiin oday deegaankana waxaan ka yidhi meel kale u sameeyaan ku yidhi raggaana haddaad ku teestaan dambiilayaasha kiima ku martida soo socota meel kale u raadiyabaad markaa adigu meel kale u sameeyaan ku yidhi in markaa odayaashii meesha la geeyey sidoodii loo daayo si aanan shaqaaqa u dhicin miyaa odayaasha waan wada hadlay waxaan ku yidhi odayaasha anigu meesha jooga waan wada hadlay abtiyaal baan ku yidhi maaragtay meeshani waad leedihiin annaguna waxaan ugu talagalay martida maadaama loo hekaysiiyey maaragtay ina oona leeyahay maxaan ku idhahay maamulkii degmada waxa sameeyana anigoo maamulkii gobolkii amar baan nisiyey halkaabaad iska fadhiyaysaa baan ku yidhi maamul degmanayni iguma imanayaan ku yidhi kani aniga igu eedaynaya xildhibaankiina waa maxaan ku idhahay waa nin jeclaysigooda disugu jeceliyo doonaya wuxuu u dhigay sidaas si aniga khusaysa maaha degmadana maaragtay gobol cid baa maabusha odayaashiina anu waa la hadlo waxaan ku yidhi halkiina laynaguma imanaya fadhiya xaalku hadda iminka sidee weeye xaaladda magaalada waa sidee waxaa la wax jirta ma jirto ku yeeraaya adintaa ula tegayna waan xidhay waanan dhaadhicinayaa jeel bariga geenaya kuwa si kastaba ha ahaatee wafdigan xukuumadda ee lagu ballansanaa inuu soo gaadho maanta magaalada xariirad ayaan weli lahaynin balse waxaa la filayaa inuu soo gaadho gooraha soo socda wixii ka soo kordha arrimahaasina waxaad kala socon doontaan warsidaha caalamiga ah ee heemaal وعلي حجر شبكة ورركة هيمال مقالة السيلة.